waxaan arkayay ama la igu soo sheergareynayay ama fariimahooda ay ii imaanayeen dhalinyaro eyle ah ama beesha eyle ka soo jeedo oo ka hadlaya qadiyadda Geedi Shambo ama qadiyadda Boqor Geedi Shambo. Boqor Geedi Shambo horta marna waxaa la yiraahdaa Boqor Geedi Shambo, marna waxaa la yiraahdaa Boqor Geedi Abba ayaa la yiraahdaa. maadaama calaamadaha tusaalaha toodan u raacaya waxay soo maqleen iyo waxay lagu soo sheegay oo lagu soo aqriyay u raacaya dhalinyaradaas. maadaama la idiin soo yiri Geedi Shambo wuxuu ahaa nin caga waaweyn, nin xoogan oo murqaani ah, nin qajamo waaweyn oo qajamiisa aad u weyn yihiin, nin san weyn oo xoog leh oo ahaa maadaama la idiin soo dhahay oo beelaha jareerna inta badan markay abtirsanayaan ay dhahan Geedi Shambo waa jareer ahay aan dhulkan ka taliyay aan ku faanaynaa oo magaca Geedi Abba ay isku diidayaan dhanka eelada marka loo baxo. waxaan idin leeyahay horta haddii oo astaamahaas oo lahaa xitaa micnaheedu ma ahan inuu aabihiis uu jareer ahaa, micnaheedu ma ahan beelo jareer. horta xilligaas oo Geedi Shambo uu joogay ama xilligaas Geedi Abba uu joogay saa u taqaanaa ha ahaatee beelo jareer weyn wax la yiraahdo ma joogin. ardadan eyle iyo ama xaaro leeyahay dadkaaba waxay ku eebatuugayeen ba yaa eyle ka dhigaleen ku eebatuugayeen xilligaas oo Boqor Geedi Shambo ama Boqor Geedi Abba uu joogay. kuwa kale geeska Afrika ee ardul cudur dhulkan waxa loo yaqaanay ardul cudur, ardul boqor, dhulka udgoona, dhulka casboona. yani maadaama wadamadaas kale saxara ay ahaayeen oo saxara ay ahaayeen aan dhahe oo yani intooda badan aynan wax soo saarka fiican aysan haynin, tadawuraadkana uu yahay marka inay wax dhoofiyaan ama wadamada kale inay wax ka soo dhoofistaan ay ahayd saaxil al-bahr al-ahmar wa muhiit al-hindiya la isticmaali jiray. saasaradeeda kuwa yimaado oo musaafiriinta ama tujaarta ama ganacsatada ah aba intooda badanba markay yiraahdaan arladan eyle ama xaarale waaya eyle ka dhigaleen ku eebatuugay dadmin marka in taariikhdaadii la dhuminaayo oo adiga taariikh kale lagu saarayo yaa laga dhaadhicin marka Geedi Shambo jareer waaye yaa laga dhaadhicin. calaamadaha jareer uu laan karaa oo timihiisu way kaduunaan karaan, sankiisu weynaan karaan, gafuurkiisu weynaan karaan sida ay ku sheegeen ba ay ku dhaheen Geedi Shambo wuxuu ahaa nin timo kaduudan, nin san weyn, nin qajamo waaweyn, nin feer weyn oo murqaanista oo murqiisuna ay xirxiran yihiin, nin cagaba ballaaran waa maadaama adiga lagu soo yiri oo saas jareer waay ahaan lagaaga dhaadhicay. micnaheedu maahan aniga sugow ah oo eyle ah haddii murqaani aan ahay oo qajamo waaweyn ahay sankeygana weyn yahay in aabahe uu jareer uu yahay maahan. asalkeyga iyo taariikhdeyda iyo abtirkeygana inuu jareer yahay maahan. maanta abtirkeyguna inuu jareer yahay maahan. dadmin marka beelo jareer weynana ma jirin xilliga Geedi Abba uu joogay. beelo jareer weyne waxay sameysmeen markii boqortooyadii Boqor Geedi Abba iyo Boqor Geela Garagaroob keen ay burburtay beelihii oo dhalinyaradii oo ciidanka ahaa oo hoggaanka hayay qiyaadada ama maxaa ahay ciidanka ahaa oo militariga dagaalka ahaana ay cabsadeen naftoodii u cabsadeen oo boqorkiina uu la dilay boqortooyada ay burburtay ayaa taliyayaashii shiraako ay sameeyeen dadmin anagu ay lama yihiin marka naftooda ayagoo ka baqanay beelo jareer weyn waxa la yiraahdo ma jiraan. meel jareer weyne ay ku qoran tahay ma jirto. jareer weyne waxa uu soo baxay taariikhdoodii asal ahaantoodana waxay ahayd wax yar haddii jareer weyne oo jirana aabba jareer la yiraahdo hala keeno horaan u sheegnay waa maxaa ilaa hadan waa sheegayna. marka adigu ma hadda eyle tahay boqortooyo eyle ka dhalatay yaan laga marin habaabin waa san weyn tahay jareer tahay yaan lagu dhigay. micnaha hadda adi san weyn tahay micnaheedu ma aha in adi jareer tahay aabaha iyo isirkaaga iyo farcaaga ay jareer yihiin ma aha. ma fahantay marka ilaahay in Allah yakhluqu ma yasha fa'aalun lima yurid. ilaahay wuxuu doono sameeyaa wuxuu doono abuuraa wuxuu abuura wax walbana asiga abuuro. sadradeed maadaama ilaahay wax walba abuuro cadaankana asaa abuuro, madowgana asaa abuuro, afrikaankana asaa abuuro, kan jareerka ah timaha abuurana asaa abuuro. marka boqortooyadu way lahaan kartaa wax walba way lahaan kartaa laakiin ma aha in la yiraahdo eyle jareer waaye lamid ah. hore aan u soo hadlay muuqaalo kala soo daawo eyle jareerna ma ahan, digil imriflana ma ahan, daaroodna ma ahan, mareexaanna ma ahan, majeerteenna ma ahan, hawiyana ma ahan. horaan u sheegay haddaana san kuwa erer Soomaali isku raadsanaayo iyo kuwan daarood 5 iyo D5 isku raadsanaayo iyo kuwa isaaq isku raadsanaayo eyle ma ahan. kuwa mirifle iyadaa sameysay eyle markay boqortooyadii eyle burburtay mirifle markaasaa la sameeyey oo waxay ahayd hubkii araraya ayba ahayd ilaa haddana ayba taaba sida hadda koonfur shabeellaha hoose sida arkaysan dhibka ka dhacay sida wax xalinayso u taagan tahay wiilasha oo dagaalamaayo furunta joogana eyle waa sidaas si la mid ah ayaguna u rabaan ay u doonayaan inay taariikhdaada adigu ay duugaan. marka taariikhdaada yaan laga duugin yaana laga maldihin
reer la yaqaan dad la yaqaan ka soo jeeda intaasan kugu soo gaadinaya haddii adiga lagu waldihi karo jareera tahay iyo hebelo tahay lagu dhihi karana maskaxdaada weli ma way fadhisaa maskaxda ka shaqaysii baaridna samee baxsina samee meesha ka timid asal ahaan farxanteeda la samee beelahan jareerta la yiraahdo ma jirin meel ay jireen markaasi ma joogto marka taariikhda boqorgeed abaa lagu baabi'inayaa oo geed shambo nin jareer u ahaa jareerta asaa hogaaminaya oo lagu xumeynaya taariikhda boqorgeed shambo waa lagu xumeynaya ee ma ahan in taariikhda boqorgeed shambo la soo bandhigayo ma ahan beelahanna horaan u sheegayo haddii boqortooye ay yihiin sida eyladu ay boqortooye u laheedo boqor hebel loo dhihi karo beelahan jareertana hadday wax isku hayaan boqor hebelaa naga soo baxay oo annaga ahaa aabbaheena jareer hebel la yidhaha jareer ka sheegaan annaga eyligu wuxuu yahay waa sheegaynaa eyla hebel aan leenahay laakiin ayagu jareera muxuu ahaa iyo tiir iyo geed iyo daah iyo mare iyo in muxuu ahaa iyo nal iyo in laysku magac darama he meeshuu ka yimid ikan dhale hala sheego oday